halkan waa dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataa wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo gaaray magaalada Addis Ababa iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo fariin ka hormarisay isla markaana qodobada ay ka wada hadlayaan Itoobiya kaalin ku yeelanaysa waxaad sidoo kale daawan doontaan qorshe ay ku doonayeen xildhibaano ka tirsan UK in lagu aqoonsado Soomaaliland oo meel cidla ku soo dhamaaday waxa sidoo kale eegi doona dawladda Sacuudiga oo safiir cusub u soo dirsatay Soomaaliya iyo xukuumadda oo kala wareegtay waxa sidoo kale eegi doona qaraxyo ku soo badanaya magaalada Muqdisho tan iyo markii Imaaraadku ku soo laabtay saaxadda siyaasadda ee Soomaaliya qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownay hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu gaaray magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya halkaasi waxa ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Abiy kuwa oo kala hadlay qorshihiisa safarka iyo waxa uu u tagay halkaas waxay sidoo kale iska wareysan doonaan xaaladda gobolka istiraatiijiyadda iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo hanaanka siyaasadeed ee gobolka markuu halkaasi tagay waxa soo dhaweeyay wasiirka maaliyadda dalkaasi Axmed Shide waxayna ka wada hadleen qodobada ugu suurtagalsan oo dhinacyadu ay tahay inay diiradda saaraan si xal waara looga gaaro caqabadaha dalkani ku horgudban ila wareedyo muhiim ah oo si dhow ula socday kulanka ayaa xaqiijiyay in dadaalada halkaasi ka socda ay qayb ka noqon karaan hanaan lagu doonayo in lagu tiro hanaanka qorsheysan ee lagu doonayo in lagu xoojiyo doorashooyinka wadankan waxaa sidoo kale Itoobiya ay wajahaysaa caqabado dhanka ammaanka kadib markii kooxda hubeysan ee balaagada TPLF ay dagaal ka qaaday waqooyiga dalkaas waxaana muuqanaysa in Abiy uu raadinayo xulufo gobolka waxaa sidoo kale laga hadlayaa Abiy qorshe ku aadan sidii Itoobiya ay maalgasho lahayd qaybo ka mid ah Soomaaliland kadib warqad ay ka heshay dawladda federaalka oo kula heshiiday dawladda Itoobiya in qayb ahaan ay iska bixiso canshuurta isla markaana loo ogolaado dekedaha Soomaalida inay wax kala soo degto meelaha ay diiradda saarayso waxaa ka mid ah dekeda weyn ee magaalada Berbero halkaas oo iskala hadli doonaan Muuse Biixi maadaama uu yahay maamulka deegaankaas dawladda federaalka ayaa sidoo kale waxay warqad u dirtay dawladda Itoobiya waxayna u sheegtay in xadgudub lagu sameyn madax banaanida dalkan waxay u sheegtay in Muuse uusan kaligiis u go'aan gaari karin isla markaana uusan ka shaqeyn karin waxaan danta Soomaalidu ku jirin waxay sidoo kale ka wada hadleen qorshayaasha xiga ajendayaasha iyo halka la aadayo waxay sidoo kale ku booriyeen inay la yimaadaan aragti ka duwan mid haatan ay dhinacyadu hayaan waxay ku booriyeen in qorshahaasi uu noqdo mid hanaanka dawladnimada si weyn looga wada shaqeynayo ila wareedyo muhiim ah ayaa sidoo kale tibaaxay in qorshahaasi uu suurto gelinayo qorshayaal isku xiran oo dalka iyo dawladnimadu ay ku gaari karaan hanaan doorasho oo loo wada dhan yahay isfaham xaalka oo la dejiyo qorshe doorasho ayaa dalka deegaanka iyo dadka u muhiim ah waana mid keentay maanta in dhinacyadu ay si weyn u wajahaan qorshahaas taasina waxay la wajibaaraysaa dadaalada laga maarmaanka oo dalkan si loo gaaro ajenda midaysan oo qorshaha doorashada lagu soo dhameystirayo xilli walba dalkani wuxuu qayb ka ahaa dadaalo sii socday kuwa oo doorashooyinka dalka dhabaha u xaarayay waxaa sidoo kale la fahamsanaa in wada kasta oo dhanka doorashooyinka loo qaado ay muhiim u ahayd dalka iyo dawladnimada dhinacyada sida weyn isha ugu hayay hanaanka doorashooyinka ayaa qaba in qorshahaasi uu mar walba ahaa midka kaliya ee doorashooyinka dalkani lagu xaqiijin karo ila wareedyo fahamsanaa hanaanka dawladnimada iyo sidoo kale qorshaha dalkani u baahan yahay ayaa soo bandhigay sida ay muhiim u tahay in la soo afjara caqabadaha isla markaana loo gudbo qorshayaal isku xiran oo dhanka doorashooyinka iyo sidoo kale hanaanka dawlad wanaagga si walbaba dalkani wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa qorshayaasha laga maarmaanka oo dalka iyo dawladnimada si loo gaaro hanaan dawladnimo isku xiran waa in fahnaa halka loo socday halka la iigsanayay inay yihiin qodobo dawladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Itoobiyaba dani kugu jirto waxa la iska kaashanayana ay noqdaan wax dhinacyada ay wada fahamsan yihiin
Soomaaliya waxay sidoo kale ka dalbatay dowladda Itoobiya in tallaabooyinka ay qaadayso ay noqdaan kuwa u hiilinaya gobolka Geeska Afrika isla markaana hal dhinac aan diiradda saarayn. Soomaaliya waxay u baahan tahay hanaan isku xiran oo dhanka hanaanka dowlad wanaagga iyo sidoo kale qorshayaal bedeli kara midka haatan mucaaradku ay ku fakarayaan oo ah in hoos loo dhigo xiriirka laga leeyahay Itoobiya maadaama Itoobiya ay tahay deris iyo sidoo kale mid saameyn ku leh xaaladda siyaasadeed ee gobolka. Soomaaliya keligeed ma socon karto, waa inay lahaataa dowlado xiriir la leh iyo sidoo kale xiriir caalami oo gobolka la leedahay, taas oo fududeyn karta qorshaha lama huraanka u ah dowladnimada Soomaaliya. Si walbaba dalkani ku yaala geeska qaaradda Afrika ayaa fahamsan in xiriirka gobolka uu dhabaha u xaari karo iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ka hirgala, waana midda keenaysa dhinacyadu inay si weyn u fahmaan dadaalada socda. Taasina qayb ayay ka noqon kartaa dadaalada laga maarmaanka u ah dalkan ku yaala geeska qaaradda Afrika. Dhinacyada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Soomaaliya ay mar walba muhiim u tahay in xiriirka gobolka iska dhisto, waana tan keenaysa in haatan lagu wargeliyo Itoobiya in xiriirka ay la yeelanayso Muuse inuu ahaadaa mid dhinacyada ay dani kugu jirto. Muuse Biixi iyo dadka dhaliila siyaasadiisa waxay fahamsan yihiin in uu wax badan Itoobiya ku siin karo wax yar meeshii looga baahnaa oo heshiis weyn aan ahayn uu kula geli karo xaalad khatara maadaama diblomaasiyadiisu ay tahay kalluumaysi iyo inuu maalmo kusii joogo maamulka oo halkaas ku haysto. Dadka qaar waxay sheegeen in aan heshiis isku dhigma Itoobiya iyo Somaliland aysan geli karin, taas awgeed ay waajib tahay dowladda federaalka inay kaalin ku yeelato heshiis walba oo ay wada gelayaan Addis Ababa, Hargeysa iyo Muqdisho. taasi waxay sidoo kale dadejisay kaalinta dowladda ee gobolkaas si looga fiirsado tallaabooyinka la qaadayo inay yihiin kuwa dalka iyo dowladnimada u adeegaya. intaasi waxaa dheer in la isla fahamsan yahay qorshahaasi inuu dalka iyo dowladnimadaba horumar u abuuri karo. dhanka kale waxaa fashilmay dadaalo ay doonayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka UK kuwa oo dhawaan tagay Hargeysa isla markaana dhaqaale ka qaatay in ay aqoonsi u helaan Somaliland. taasina Ingiriiska waa ay ka socoweysay buuq qayle iyo sawaxan ayaa qabsaday gudaha baarlamaanku waxay sheegeen inay suurtagal noqon karin lana aqoonsan karin koox gaara ama koox doonaysa inay ka hortimaado dowladnimada Soomaaliya, waxayna tilmaameen in midaasi tahay riya maalmeed aan soco karin. waa inoo muhiim inaan fiirino halka aan higsanayno, waa inaan sidoo kale eegnaa qorshaheena iyo kan xiga. tallaabta aan qaadaynana waa inay noqotaa mid dalka, deegaanka iyo dadka dani kugu jirto si loola yimaado qorshe ka bedelan midka haatan taagan. dhinacyada ayaa si guud u fahamsan in tallaab kastoo maanta la qaado ay tahay midda keliya ee dhabaha u xaari karta dowladnimada gobolka, istiraatiijiyadda iyo xaalka gobolka inuu noqdo mid degan ama istaybala. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qorshahaasi u arka midka keliya ee xal siyaasadeed, nabad iyo ammaan lagu gaari karo. dhinacyaduna waa inay fahmaan isla midaas sida ay sheegeen dadka fahamsan dhanka siyaasadda. dhanka kale magaalada Muqdisho waxaa soo badanaya qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya tan iyo markii la soo celiyay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya. dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi ka socday dalka Imaaraadka. wuxuu halkaasi ka sheegay Imaaraadku inay safaaradooda dib u furanayaan isla markaana ay la shaqeynayaan dowladnimada Soomaaliya, balse wixii markaasi ka dambeeyay waxaa soo kordhay caqabado iyo dhibaatooyin ka dhacay. waxaa dhacay dhowr qarax kuwa oo lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo, iyo mid kale oo ka dhacay xeerada Turkisom halkaa oo lagu qaarajiyay askar ka tirsan dowladda federaalka, waana midda dad badan shaki ay ka keeneen. siyaasiyiinta qaarkood ayaa sidoo kale waxay sheegeen qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya magaalada caasimadda qaarkood inay yihiin kuwa ku lug leh dhanka siyaasadda, ayna muhiim tahay dhinacyadu inay si fiican aragtidaas uga sii fakaraan waxna ka bedelaan go-aankooda siyaasadeed, midooda diblomaasi iyo qorshahooda laga maarmaanka oo dowladnimada si loola yimaado qorshe midka haatan taagan ka duwan. si walbaba dalkani ku yaala geeska qaaradda Afrika ayaa fahamsan in dhibaatooyinka soo kordha ay xaalad keenayso, ayna tahay dhinacyadu inay kasii fakaraan tallaabada la qaadayo, halka ay saldhiga karto iyo qorshaha xiga si loogu gudbo nidaam dowladnimo oo loo dhan yahay. qeexitaanka waajibaadka dowladnimada ayaa sidoo kale qayb ka ah
qorshayaashii ugu dambeeyay ee dalkani laga qabtay. waxaa sidoo kale muhiim ah in la isla fahmo in tallaab kastoo la qaadayo ay tahay mid u adeegaysa dalka iyo dowladnimada si ajandayaashu ay u noqdaan kuwo xal waara u noqon kara wadanka ku yaala geeska qaaradda Afrika. sidaas oo ay jirto waxaa la fahamsan yahay in tallaabooyinka iyo shaqooyinka la qabanayo ay noqdaan kuwo la isku halayn karo, waana midda dad badan ay u arkaan inay yareyn karto saameynta dhibaatooyinka ka dhaca wadankan, sidoo kale loo gaaro qorshayaal isku xiran. Sacuudi Caraabiyana safiir cusub ay u soo dirsatay Soomaaliya, wuxuuna warqadaha aqoonsiga ku wareejiyay wasaaradda arrimaha dibadda, isagoo saacadaha soo socda u tagi doona madaxweynaha jamhuuriyadda si uu ugu wareejiyo warqadiisa aqoonsiga loona siiyo shahaadada uu ku joogi karo dalkan Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal intaasi waxaan ogaag warka dhaanka wararka tan intaa mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka Sirta Wararka iyo Calanka News. waa Arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 Janaayo sanadkan cusub ee 2022. idaacadeena saaka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka Ra'iisul Wasaare Roble oo rumaystay digniinaha amni ee loo soo jeediyay xafiiskiisa isagoo darbada ciidamo dheeraad ah oo lagu soo biiriyay ilaalada gaarka xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. haddaba cabsida soo wajahda dhanka amniga Ra'iisul Wasaaraha iyo digniinta loo jeediyay Ra'iisul Wasaaraha amniga la xiriira kadib beegsi xoog leh lagu sameeyay xubnaha asiga u dhow kuwaas oo qaraxyo lagu beegsaday. warbixin dheeraad ayaan kaga hayaa korarka ku yimid qaraxyada ka dhacaya magaalada caasimadda Muqdisho oo walwal xoog leh ku abuuray dadka caasimadda, ayadoo warar soo baxay sheegayna qaraxyo kale hor leh la soo geliyay magaalada Muqdisho kuwaas oo bartilmaameedkooda ilaa hadda aan la ogaan. wararkii ugu dambeeyay xaaladda caasimadda, korarka qaraxyada iyo waliba qaraxyada cusub iyo halka ay ku wajahayeen ayaan warbixin dheer kaga hayaa. warbixinadeena kala saaxiibil warkeena subaxaad ku daawo doontaan waxaa qaybka dowladda UK oo rajabeel ku riday Somaliland diidana in aqoonsi la siiyo maamulka Somaliland. haddaba dowladda UK oo mowqif cad ka qaadatay aqoonsiga Somaliland iyo doodii baarlamaanka oo fashilantay. warbixin dheeraad ayaan kaga hayaa. guddiga xalinta khilaafaadka oo soo saaray xilliga ay dhacayso doorashada gudoomiyaha cusub ee guddigaasi iyo shuruud lagu xiray shakhsiyaadka naqanaya gudoomiyaha. warbixino ayaa qayb ka ah. waxaa kaloo saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliya oo xawaare sare ku socota iyo xogo cusub oo laga helayo doorashada. madaxweyne Qoorqoor oo bilaabay boobka kuraas ka mid ah golaha shacabka inuu boobo iyo eedan culus loo soo jeediyay, iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo lagu eedeeyay in wiilkiisa oo u boobayo kuraas ka mid ah golaha shacabka uuna la rabo wiilka isaga u dhalay Cabdi Xaashi in xildhibaan uu noqdo. qaybaha dambe warka ayaad ku daawo doontaan muuqaallo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka reer waqooyiga ah ee Cabdi Xaashi ay ku eedeeyeen. qodobadani kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena subaxnimo. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena, subscribe noo dhig gambrelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahinay. mar kale subax wanaagsan, soo dhawaada saaxiibayaal. aan ku bilaabase xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa rumaystay digniinaha amni ee xafiiskiisa loo soo jeediyay tan iyo markii ay kordheen beegsiga qaraxyada ka dhacay caasimadda ee la beegsanayo xubnaha asiga u dhow ee saaxiibada dhow la ah Ra'iisul Wasaare Roble. tan iyo markaas wixii ka bilowday caasimadda ayaa u muuqday mid martigelinaysa qaraxyadii ugu badnaa ee Muqdisho ka dhaca bilihii Agoosto ilaa November iyo sanadkan cusub ee 2021 ayaa xog warbaahinta qaar ee heshay oo la faafiyay ayaa la sheegay Ra'iisul Wasaaraha loo gudbiyay macluumaad ku saabsan inay jiraan weeraro qaraxyo ah oo lagu bartilmaameedsan karo xubnaha u dhow Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waqtigaas oo khilaaf adag kala dhaxeeyay madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday. san xogta ay tilmaamayeen waxaa arrintan Roble la wadaagay Korneyl Cabdulaahi Daahir oo ku magac dheer Cabdulaahi Dheere, kaas oo ka mid ah madaxa muqaabaraadka ahna taliyaha dabagalka hay'adda NISA, saaxiib dhinula ah madaxweyne Farmaajo Fahad sida ilaa xogtan ay noo xaqiijiyeen. Cabdulaahi Dheere ayaa la ogaaday in si toos ah kun ula qaatay Ra'iisul Wasaaraha kuna wargeliyay digniinaha la xiriira inay jiraan rag ka tirsan xafiiskiisa oo la rabo in la beegsado.
waxaana xilligaasi muuqanaysa in ra-iisul wasaaruhu xilligaas uusan jirin baraarug weyn oo ku saabsan beegsiga la doonayo in la beegsan karo qaraxyada ah ragga isaga u dhow ee saaxiibadiisa. weerarada lagu bartilmaameysanayo garbaha ra-iisul wasaaraha ayaana bilaabatay bishii November markaasoo la beegsaday xubno isaga u dhow. weerarkii ugu dambeeyay ee qaraxyada ah waxaa lagu qaaday Maxamed Ibraahim Maclimo afayeenkii xukuumadda oo la beegsaday. waxaase kasii horeeyay laba qarax oo kale lagu beegsaday shakhsiyaad ra-iisul wasaaraha u dhow. mid wuxuu ahaa agaasimihi Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika, halka midka kalena qarax lagu qarijiyay gabar iyo wiil ka mid ah howlwadeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha. dhammaan dadkaas la beegsaday waxay ahaayeen garbaha ra-iisul wasaaraha uu ku duulayay, waxayna ahayd shirqool la soo abaabulay aysan ahayn maskax al-shabaab ka timid, ayuu yiri nin ka mid ah muqaabaraadka xubnaha dhanka sirdoonka qaabilsan. taliyaha dabagalka NISA Korneyl Cabdulaahi Dheere ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay qayb ka ah saraakiil kaliya ee saraakiisha inta badan dalka joogta ee ka warhaya macluumaadyada arrimaha la xiriira weerarooyinka sida xogta la helay, asagoo digniino hore loo jeediyay xafiiska ra-iisul wasaaraha. inkastoo ra-iisul wasaaruhu xilligaas uusan ahmiyad badan siinin oo aysan ka muuqan feejignaan iyo baraarug badan oo ku saabsan beegsiga xubnaha saaxiibadiisa. waxaa sidoo kale taliye ku-xigeenkii hore hay'adda NISA Jenaraal Cabdalla oo isna ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya wuxuu ka digay qorshayaal kale oo amniga lid ku ah oo caasimadda ka socda oo u badan shirqool la rabo in lagu bartilmaameedsado xubno kale oo mas'uuliyiin ah. Roble ayaa la tilmaamay in saacadihii la soo dhaafay oo kulamo la qaatay saraakiil ciidan oo qaar ka mid ah in kuwa isku heyba asagoo muujiyay walwalka amni ee dul saaran xafiiskiisa. dhinaca kale warar soo baxaya sheegaya in Mareykanka wado qorsho uu ku wajahayo amniga iyo doorashada Soomaaliya, waxaana xukuumadda Washington ay si toos ah kaga soo horjeestay farmaajo Fahad iyagoo u arka qaswadaha doorashada. waxaana Roble ay sheegeen xukuumadda Washington in garab buuxda ay siinayso dardargelinta arrimaha doorashooyinka. tilaabadan ayaa sidoo kale keeni karta in casuumaadda Mareykanka oo ku tagayo taliyaha dabagalka Cabdulaahi Dheere ay heli karto fursad weyn oo ninkan loo arki karo in madaxweyne Joe Biden uu la kulmo kadibna loo ballan qaado arrimaha sirdoonka in Mareykanka uu kala shaqeeyo. Xamza Warfaac oo ah siyaasi dhalinyaro oo Mareykanka degan oo xiriir dhow la leh John Biden ayaa la sheegay in dhowaan xil sare uu helay. Roble farmaajo khilaafkooda ka dhaxeeya kaliya ma uu soo saameyn doono arrimaha doorashada ee waxa uu saameeyay dhinacyada amni sida weyn loogu dareemo caasimadda, waxaana kordhaya falalka nafti huriyaasha ah ee ku bartilmaameysanayaan mas'uuliyiinta qaar ee dowladda, xubnaha rayidka kuwaasoo qaarkood dhaawacyo culus ay ka soo gaareen. ilaha aan xogtan ka soo xignay waxay channelkeena YouTube-ka sirta wararka u xaqiijiyeen in halis amni oo weyn ay jirto kuwaasoo laga baqayo in qaraxyo kale ay dhacaan. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa la soo sheegay inuu dalbaday ciidamo dheeraad ah in la geeyo xafiiskiisa si loo xaqiijiyo amniga caasimadda. waxaana wararku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu soo wajahay qalqal weyn oo dhanka ammaanka ku saabsan iyo cabsi weyn, taasoo keentay inuu dalbado ilaaladii ugu badnaa ee ciidamo ah. dhinaca kale magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxaa ku sii kordhaya qaraxyada ka dhacaya caasimadda ayadoo wax ka yar hal toddobaad gudaheeda ay magaaladu ka dhaceen ilaa 3 qaraxyo. al-shabaab ayaa la soo sheegayaa inay badileen tacticada iyo waliba sidoo kale habka weerarada u fulinayeen. qaraxyo kale culus ayaa la soo geliyay caasimadda kuwaas oo al-shabaab ay rabaan inay bartilmaameed gaar ah ka sameystaan. waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa sii kordhaya weerarada ay kooxda al-shabaab ay ka fulinaysay Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda markii dad isku soo rakibay jaakadaha qaraxyada laga soo buuxiyo ay qaraxyada fulinayaan. waxaana ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay xerab military oo Turkisom ay ku taala degmada Wadajir, waxaase ka sii horeeyay weerarkii Axadda qof naftii holiga oo isku qarxiyay afayeenka xukuumadda. Macalimo ayaa soo gaaray dhaawac inkastoo Turkiga loo qaaday. maxaa sababay ama ku qasbay in al-shabaab ay isticmaasho taatikadan cusub? muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa yaraaday gawaarida laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo lagu weeraro dhismayaasha dowladda, hoteelada Muqdisho iyo bartilmaameedyada kale ee al-shabaab sida muuqata. khubaro ku xeel dheer arrimaha ammaanka ayaa ku doodaya in suurtagal ah in al-shabaab dhowr arrimood ay ku dhalisay inay adeegsadaan falsafadahan cusub ee jaakadaha qaraxyada iyo suumanka qaraxyada ka samaysan oo ay ku fuliyaan weeraradooda.
haddaba xasan macalin oo ah madaxa macadka hilaal ayaa ka faalooda arrimaha amniga ayaa sheegay in sababaha al-shabaab ku qasbaya ay tahay dhowr arrimood in tacticadooda ay bedelaan. wuxuu intaasi ku diray in al-shabaab dagaalka mar walba ay u xoojiyaan meesha ay tacticadooda u badato. way u suurtageli weyday gawaarida waaweyn, waxaas u suurtagalay u fududaaday dhalinyarada yaryar in qaraxyo ay ku soo xiraan oo ay taasoo fududeyn karta in shakhsiyaadka ay rabaan si sahlan ay ku bartilmaameedsadaan marka laga cabir qaato ficilada al-shabaab ay sameeyeen. waxaana qayb ka ah in gaari socda oo qofka naftiyeeliga uu ku soo ordo oo uu qabsado kadibna uu isqarxiyo. waxay helay tactico dhaqamo cusub oo al-shabaab laga bartay. maxaa bedelay tacticadii hore ee al-shabaab lagu yiqiinay? ciidanka dowladda saraakiishooda ayaa hadda ku doodaya midaas inay ka timid deganaanta ciidamada iyo weliba sidoo kale ciidamada oo kordhiyay baraha kontarool iyo hubinta gaadiidka oo la kordhiyay. shabaabka weeraradoodu way soo ilaatay marka loo eego weerarada baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyo oo laga keenay shabeellooyinka kadibna lasoo geliyay Muqdisho. deegaano muhiim ayaa al-shabaab laga saaray, buundooyin iyo gawaari qaraxyo goobihii ay soo mari jireen ayaa sidoo kale la xiray. waxaase la sheegay in masaafo aad ugu fog al-shabaab ay kasoo abaabuli karaan qaraxyada gaadiidka, taasoo halis weyn ku ah qudhooda uusan gaariga intaasoo qaraxyo tan oo culus uusan soo wadi karin. dhinaca kale waxaa la xiray wadooyin badan oo ku yaala caasimadda, mana jiraan baabuur qaraxyo sida oo si sahlan kaga soo gudbi kara baraha kontarool la dhigay wadooyinka oo lagu hubinayo gaadiidka. waana sabab kale oo loo aaneyn karo inay yareysay baabuurta qaraxyada ee al-shabaab ay keysan jireen. hase yeeshee dadka ku xeeldheer arrimaha ammaanka ee gobolka ayaa sheegaya in tacticadan ay isticmaasho al-shabaab ay keentay mid halistii hore ka badan. inkastoo bamgacmeedyada gacmaha laga tuuro, baskooladaha dilalka loo adeegsado iyo khaarijinta suumanka ama jaakadaha qaraxyada ay tahay mid khasaarahooda aad kaga yartahay marka loo eego baabuurta qaraxyada laga soo buuxiya. qorshaha ayaa la sheegay in al-shabaab ay rabto ilaa ay doorashada inay ku qalqalgeliso amniga. dadka caanka ah ee isqarxinta lagu bartilmaameedsaday saacadihii lasoo dhaafay ee Soomaaliya inta badan isqarxinta waxa ay kuwa dad caan ah lagu bartilmaameedsaday iyo xubno mas'uuliyiin ah. ujeedka al-shabaab waxay ka ahayd cabsigelin iyo weliba handadaad lagu sameeyo xubnaha kale ee mas'uuliyiinta dowladda. warbixinada dhanka amniga ayaan halkaasi kaga gudbinaa saaxiibayaal. goordhow waxaan eegi doonaa arrimaha la xiriira dowladda Britain oo mowqif cad ka qaadatay qorshaha gool isku taagga Somaliland iyo in aqoonsi la siiyo. hase yeeshee doorashada Soomaaliya ayaan eeginaa. doorashada Soomaaliya ayaa u muuqatay mid xawaare sare ku bilaabatay markan, waxaase soo kordhaya cabashada eedeynta iyo qeyladaanta ka dhalanaysa kuraasta qaarkood oo madaxda gobolada lagu eedeynayo in si ku talagal ay u boobayaan kuraasta qaar, sida ay sheegayaan beelaha iskale kuraasta la boobayo iyo kuwa qaarkood cabasho xoog leh ka muujinaya. madaxweyne Qoorqoor ayaa bilaabay laguna eedeynaya boobka kuraas ka mid ah golaha shacabka ee Galmudug taala. Axmed Qoorqoor ayaa bilaabay qorshe uu rabo inuu ku boobo kuraas badan oo farmaajo inuu siiyo, waxaana caqabad culus oo kala kulmaya musharaxiinta beelaha ee nacayb weyn u qaba farmaajo kuwaas oo diidan in kuraasta loo boobo. waxaa shalay maamulka lagu soo dadka ka soo jeeda halkaas ay ka diideen in kuraasta la boobo, eedan culus u soo jeedin Qoorqoor oo ku saabsan haddii ku tagrifalka dhanka doorashadu joojiyo wixii ka dhashay mas'uuliyadda uu qaadayo. Qoorqoor ayaa la sheegay in lagu eedeynayo inuu rabo in waxyaabo badan oo kala dhantaalo. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Wardheer ayaa la sheegay in Qoorqoor uu rabo kursigiisa inuu u boobo maadaama Cali Yare iyo Maha Salaada isku kursi yihiin. sidoo kale Cali Yare uu gacanta midig ee farmaajo. talaabadaas oo loogu digay Qoorqoor waxaase loo soo jeediyay inuu qaato position dhexdhexaad ah oo kursigan uu noqdo tartan furan oo qofkii markaasi ku guuleysto inuu soo baxaa. durba siyaasiyiinta kuraasta u doonaysa Galmudug ayaa ayna ka cabir qaadanaya awoodda isticmaali kara Qoorqoor iyo falsafadaha kuraasta ugu boobaya farmaajo. Qoorqoor oo hogaamiye ku fashilmay isku haynta shacabka Galmudug ayaa weli u muuqda nin ay ku adeeganayaan kooxda waqtigooda u dhamaaday ku sugan Villa Soomaaliya. waxaana xusid mudan in asaga iyo lafta Garamba ay diideen in amniga dalka la hoosgeeyo ra'iisul wasaaraha.
kadib markii maamulka uu shaaciyay qorshe ka badan 20 kursi oo aqalka hoose ah. Waxaa soo kordhay cadaadiska qoorqoor kaga imaanaya Farmaajo Fahad ee ku saabsan in kuraastaas 80% dhanka Farmaajo ay soo marto, waana arin ay aad u adag tahay. Beelaha qaarkood ayaana diiday in loo boobo kuraastooda oo ay ka digeen haddii kuraastooda la isku dayo boob waxa ka dhalan kara iyo xaaladda Galmudug ay wajihi karto oo hubanti la'aan beeluhu ay ku doodeen in dagaalo ay dhici karaan. dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka ayaa soo saaray xilliga ay dhacayso doorashada xubnaha guddigaas iyo gudoomiyaha cusub ay dooranayaan. guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa soo saaray shuruudaha iyo xilliga la dooranayo gudoomiyaha cusub ee guddigaas oo kamid ah xubnaha hadda la dooranayo. qoraal ka soo baxay guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha ayaa soo saaray shuruudo hoos ku qoran ayagoo cadeeyay in doorashada maalinta Khamiista ka dhici doonto teendada Afisiyoni lana dooran doono gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka. ujeedo shaacin jadwalka gudoomiyaha guddiga doorashada xalinta khilaafaadka. guddiga loo xilsaaray qabanqaabada doorashada shirgudoonka iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal waxay soo saarayaan shuruudaha musharaxnimo iyo jadwalka cusub ee doorashada. musharaxa waxa uu yahay 1 waa inuu yahay xubin kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka qofka isku soo sharaxaya. 2 gudoomiye ku-xigeenka guddiga haddii uu tartamayo jagada bannaan oo uu ka tagayaa tan hadda uu hayo ee gudoomiye ku-xigeenka uu iscasilaya. 2 muddada qabanqaabada araajida musharaxiintu waxay bilaabanaysaa 18 oo shalay ahayd kuna eg 19 maanta 3 saac ayayna ku egtahay waqtiga araaji qabashada. nidaamka codbixintu waa qarsoodi waxaana lagu codeynayaa sanduuqa codbixinta. haddii tartamayaasha 3 musharax iyo ka badanba ay noqdaan oo wareegga koowaad lagu kala guuleysto 50+1 tirada guud ee guddiga waa 21 xubnood. tusaale musharaxa hela 11 cod iyo ka badan ayaa ku guuleysan kara xilka gudoomiyaha. waxay doorashadu dhacaysaa maalinta Khamiista kuna beegan 20 bisha koowaad saacaduna waa 11. goobta codbixintu waa teendada Afisiyoni sida lagu xusay qoraalka. dowladda Britain saaxiibayaal mowqif adag ay ka soo saartay aqoonsiga Somaliland iyo waliba doodii baarlamaanka oo ugu dambeyn milan natiijo la'aan ku soo ilaatay. xukuumadda ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa dalkaasi UK waxa ay sheegtay inaysan marna aqbali doonin in Soomaaliya la kala qaybiyo. waxay si diiday aragtidii Somaliland ee ah in dal madax bannaan loo aqoonsado. xukuumadda ra'iisul wasaare John Biden Boris Johnson ee dalkaasi UK ayaa mowqif niyad-jab ku ah u soo dirtay Somaliland xilli baarlamaanka dalkaas maalintii shalay dood adag oo ku saabsan aqoonsiga Somaliland ay yeesheen, laakiin nasiib darro baarlamaanka ayaana soo xaadirin doodin waa ay fashilantay. wasiirka arrimaha dibadda ee Afrika u qaabilsan ayaa ku dhawaaqay in aqoonsi ay heshay Somaliland ay tahay mid ku xiran dowladda federaalka oo ay tahay in Somaliland ay ka wada hadlaan oo labada dhinac xukuumadda Muqdisho iyo Hargeysa ay ka wada hadlaan oo ayagu inay isgartaan kadib ay Britain ictiraaf ama aqoonsi ay sii kartaa. laakiin rabitaanka dowladda Soomaaliya ayaa halkan yaala ayay tiri haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan. dooda ka socota aqalka wakiilada waxaa hoosta ka xariiqeen in mowqifka joogitaanka UK ay ku wajahan maqaamka Somaliland waa arin u taala Somaliland iyo dowladda federaalka oo go'aan ka gaari kara mustaqbalkooda ayay tiri haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ee Afrika ee qoraalkan soo daabacday. waxa ay sii wadi doonaa iskaashiga aan la leenahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee arrimaha dimuqraadiyadda, amniga iyo sidoo kale barwaaqo sooranka aan ka wada shaqeynayna. laakiin ma jirto wax ixtiraaf ah ama gaar ah oo aan Somaliland siinayna ayay ku celcelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Afrika u qaabilsan. hadalkan wasiirka arrimaha dibadda Afrika ayaa soo xiraya doodii baarlamaanka ee qabtay baraha bulshada ee rajadii Somaliland ee ahayd in doodaha la geeyay baarlamaanka UK si ay u hesho ugu badnaan aqoonsi Britain ah. warka ka soo baxay haweeneydan ayaa timi saacad uun kadib markii wada hadallo ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Britain. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qoraal uu soo saaray kulanka kadib ayuu sheegay labada wasiir ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qabsiga, ixtiraamka midnimada, madax bannaanida,
qarannimada labada dal. Labada wasiir ayaa hadalkooda diiradda ku saaray kor u qaadida xiriirka labageesoodka ah ee labada dowladood, horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, horumarka amniga gobolka Geeska Afrika, isagoo wasiir Cabdisaciid Muuse kaga mahadceliyay dowladda Ingiriiska taageerada u fidisay dowladda Soomaaliya sida lagu yiri qoraalka. Dowladda ayaa waxa ay barnaamij doodaha waxaa baarlamaanka geeyay xildhibaan lagu magacaabo Kevin Willian, kaas oo horey u ahaa wasiirka difaaca UK intii u dhaxaysay 2017 iyo 2019. doodii baarlamaanka ayaa hadda sidaasi kusoo fashilantay. ugu dambeyntii waxaa la sheegay Somaliland in ay diiday aqoonsi ama ictiraaf gaar ah la siiyo Somaliland. Arrintan ayaa dhabar jab weyn ku ah xukuumadda Muuse Biixi. Subax wanaagsan saaxiibayaal, warbixinadii dheeraa ayaa halkaasi kusoo koobina qodobadan ayaa ugu waaweyn waqtigan aan joogno. Saaxiibayaal, qodobadan iyo wixii kusoo kordha oo la xiriira xaaladda Muqdisho, amniga caasimadda, qaraxyada caasimadda la soo geliyay iyo walaaca laga muujinayo amniga. Macluumaad walba oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya mar walba isbedeli karaan, iyo sidoo kale maamulka Somaliland qudhoodu waxa ay ka yiraahdeen warkii ka soo yeeray dowladda UK inay kansashay ama ay diidaba in la aqoonsado Somaliland iyadoo ku xirtay in labada xukuumadood ee Washington iyo Hargeysa ay tahay inay ka doodaan. Sidoo kale baarlamaanka UK oo doodii ka yeeshay aqoonsiga Somaliland oo halkaasi ku soo fashilantay, iyo dowladda UK ina mowqifkeeda cadeysay. Dhammaan waxay ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee dadku u dhagraaricinayeen marka loo eego go'aanada baarlamaanka ka soo bixi kara. waaga warbixinadan ayaan kusoo koobinaa saaxiibayaal. subscribe noo dheh gambaleelkana taabo, qaybta hoose commentiga ayaan aragtidiina aad nagula wadaagi kartaan warbixinada iyo macluumaadyada aan soo gelina halkan. subax wanaagsan, nabadgelyo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن أو ونكسن داود يلهالكني وقيمتي في وحد قبرتان وررسحن وحقيقة كسلسن ونقصو قارقودها يا عالم كوحد كسر دواتان فلغان قود أن كسمين دونو xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashada khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha shaqo joojinta lagu sameeyay Maxamed Xuseen Roble ayaan si guud falaqan ugu sameyn doonaa siyaasiyiinta mucaaradka oo war naxdin leh markaasi soo saaray xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shaaca ka qaaday in xilligan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wax badan ka qabtay siyaasadda. hadalkaasi oo si weyn ay uga naxeen xubnaha mucaaradka ee uu ka tirsanaa Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba sidee ayay wax isku bedeleen mar qura Xasan Sheekh Maxamuud oo mar qura markaasi ammaan kala dul dhacay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan eegi doonaa war xasaasi ah uu soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu ku ammaanay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii ugu horeysay xilli Xasan Sheekh Maxamuud lagu ogaa inuu yahay mucaarad go'go'ay oo si weyn markaasi aan markaasi marnaba u taageersaneen siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan eegi doonaa niyadjabkaasi uu ku riday Xasan Sheekh Maxamuud xubnihii mucaaradka ee saaxiibadiisa ahaa. wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo qaadan doonaa falaqeynta qodobada. sidoo kale idin soo gudbinaya waxaa ka mid noqonaya gudoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xilligan wiil uu dhalay magaalada Muqdisho uu ka bilaabay kursi boob, iyadoo sidoo kale beesha kursigaas iska leh aydan kala duwan ay si wada jira markaasi ugu jeediyeen Cabdi Xaashi iyo sidoo kale wiilka uu dhalay. falaqeynta ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal, iyadoo sidoo kale falaqeynta aan ku dul istaagi doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashada, halka ay wax marayaan maamulada ilaa iyo haatan markaasi bilaabay doorashada iyo kuwa markaasi dib u dhaca xilligan muujinaya. falaqeyntaasi guud ayaan ku dul istaagi doonaa qaybtan oo xiise gooni ah xambaarsan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar, like taabo siina shargar warbixinadeena si ay bulshada inteeda kale u gaaraan. qiima TV waa warbaahin ka shaqeysa horumarka Soomaaliya. fadlan haddii aad tahay qof jecel qarnimada Soomaaliya, Soomaalinimadan ay ku weyntaasi faafuurarkeena waana ku mahadsantihiin. saaxiibada ku xiran YouTube-ka Qiima TV waxaan ku wargelinaynaa in aan soo kordhinay YouTube lagu magacaabo Marmar TV. waxaan idinka codsanaynaa wadaniinta ku xiran Qiima TV inaad ku soo biirtaan boggaasi cusub oo subscribe aad noo saartaan. boggaasi waxaa lagu soo gudbiyaa warar, warbixino iyo macluumaad ku saabsan xaaladda Soomaaliya, waxaana ka howlgala wariyaal loo carbiyey inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaan filayaa inaad intaas nala fahanteen, waana ku mahadsantihiin. ismaqal iyo daawasho habboon ayaan idin leeyahay saaxiibayaal. waxaan ku bilaabayaa war xasaasi ah oo markaasi ka soo kordhay doorashada Soomaaliya xilli xubnaha mucaaradka ay xilligan
niyadjab weyn kala kulmeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo war lama filaan ah markaasi soo saaray xilli uu taageeray markii ugu horreysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku ammaanay in wax badan uu ka qabtay arrimaha doorashada iyo sidoo kale xiriirka arrimaha dibadda. xasan sheekh maxamuud waa markii ugu horreysay uu ammaan markaasi kala dullaco madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba maxaa isbedelay? waxaan eegi doonaa war xasaasi ah uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay marxaladda dalka uu marayo, gaar ahaan dhinacyada doorashada, dhaqaalaha, xiriirka caalamka iyo amniga, isaga oo sheegay in dowladnimada Soomaaliya wax badan ay iska bedeleen halkii markii hore la joogay xilligan sare u kac markaasi xilligan dowladda Soomaaliya ay gaarsiisay dalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka sheekeeyay marxaladihii ay soo martay dowladnimada Soomaaliya ilaa carta iyo hanaanka federaalka ee Soomaaliya oo xilligan meel fiican maraya, sida uu sheegay oo lagu ammaani karo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in doorashada waqtiga markaasi haatan la iclaamiyay uu kusoo gabagabeyn doono, isla markaana madaxweynaha siyaasiyiin badan ay markaasi ku dhibaateeyeen hadalla markaasi micno darro ah, sida uu sheegay. xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa dadkii sida weyn markaasi u dhaliilsanaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse mar qura waxaa hadalkiisa ka niyad jabay xubnihii mucaaradka oo saaxiibada ay ahaayeen. waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan uu ka qabtay dowladnimada Soomaaliya, isla markaana aan la xaqiri karin, sida uu sheegay. lama oga sida ay wax isku bedeleen xasan sheekh maxamuud oo ammaanay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa arrin markaasi dadku ay aad u hadalhayaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sharaxay waxyaabaha uu ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. waxa uu sheegay in ay qayb ka tahay arrimaha diblomaasiyadda iyo sidoo kale xiriirka caalamka, waxaana uu sheegay in uu si weyn markaasi ula dagaalamay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo faragelinta dowladaha shisheeye ay ka wadeen gudaha Soomaaliya. markana waxaan eegi doonaa saaxiibayaal warar kale oo xasaasi ah oo ku aadan doorashada Soomaaliya, balse waxaan ka hormarin doonaa halka uu marayo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. tan iyo markii uu soo shacbaxay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaa markaasi sii xoogeysanaya khilaafkaasi, iyadoo sidoo kale haatan ay ku soo biireen dowlado shisheeye oo xilligan dana siyaasadeed ka leh khilaafka u dhaxeeya labadaasi mas-uul ee ugu sarreysa dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha shaqo joojinta lagu sameeyey Maxamed Xuseen Roble lagu soo eedeeyey falal markaasi musuqmaasuqa, isla markaana ay wada shaqayn karin. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa shakhsi go'aankiisa uu cad yahay, isla markaana aan runta ka gamban, waxaana arrintaas ay ugu wacan tahay kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu eedeeyey in xilligan magaalada Muqdisho uu ka bilaabay dhulbob. khilaafkan u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalka, iyadoo sidoo kale dhowaan uu markaasi ku guul dareystay ra'iisul wasaaraha falal uu markaasi ku doonayay in uu ku kala qaybiyo ciidamada, xilli uu shaaca ka qaaday in amarkiisa ay qaataan, balse waxaa arrintaasi si geesinimo leh uga soo horjeestay taliyaasha ciidamada oo diiday qorshahaasi ee guracan ee ra'iisul wasaaraha shaqo joojinta lagu sameeyo uu ku dhaqaaqay. dhinaca kale waxaan eegi doonaa guddoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi, wiil uu dhalay ayaa haatan magaalada Muqdisho waxa uu ka bilaabay boob kursi. waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa guddoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo wiilkiisa waxay ku eedeeyeen inay xilligan boobayaan kursi ay lahaayeen, isla markaana ay ku lahaayeen golaha shacabka. mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beelahaasi ayaa sheegay in 4 cisho ka hor ay tageen guriga uu degan yahay Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo xilligaasi uu la joogay senator Cabdi Ismaaciil Samatar, balse hadal markaasi qanci waaye ay kala soo kulmeen goobtaasi. waxgaradkii ka hadlay boobkaasi waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in beeshooda lagu hayo in xilligan la dhaco kursigaasi, isla markaana lala doonayo wiil uu dhalay
guddoomiyihii hore ee aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. sidoo kale midowda musharaxiinta iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ayay cod dheer uga sheegeen in boobkii doorashada uu halkiisa ka sii socdo, isla markaana xilligan ra'iisul wasaaraha shaqo joojinta lagu sameeyay Maxamed Xuseen Rooble uu sidoo kale wax ka og yahay kuraastaasi xilligan la boobayo. guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa markaasi degan. madaxda maamul goboleedyada waxa ay bilaabeen inay durbo markaasi dhaqan geliyaan ee codsigii ka soo yeeray golaha wadatashiga qaran xilli waqtiga markaasi loo qabtay uu iska kooban yahay, balse waxaa cunaqabateen markaasi ay wajihi doontaa haddii doorashada ay dhaqan geli waayaan ra'iisul wasaaraha shaqo joojinta lagu sameeyay iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ee taabacsan kuwaasi oo kasoo horjeeda in doorasho dalka ay ka dhacdo isla markaana qaab markaasi nabdoon la isku doorto. guud ahaanna saaxiibayaal waan intaa falaqayntii guud aan ku sameynay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. intaa falaqayn la mid ah ku kulmi doono saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo saaxiibayaal, kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur oo xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Muqdisho maadaama maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaraxyo iyo waliba dilal qorsheysan, amniga oo faraha ka baxay iyo waliga siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan amniga. xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo la isku haysto wasiirka amniga iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir oo dagaal xoogan uu ka dhaxeeyo iyo waliba ra'iisul wasaaraha oo arintaasi go'aan ka gaaraya saacadaha soo socda. xog iyo macluumaad dheeri oo arrimahaas aan idinkaga haynayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geysay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo waliba ciidanka dowladda federaalka oo heegan la geliyay. Turkigana waxa ay shaacisay arrin markaasi horey loo ogeen oo ku saabsan ciidanka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka dhabeeyay go'aankii uu ka qaatay siyaasadda Imaaraadka Carabta iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo weerar cusub ku qaaday dowladda federaalka. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. aynu ku horeyne ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa qorsheynaya in xaalad degdeg ah ay ku soo ragaan magaalada Muqdisho kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka dhacayeen qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo loo geysanayo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ilaah xog ogaal oo ku sugan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xalay kulan albaabada ay u xiran yihiin ay wada qaateen wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur iyo waliba wasiirka aan iraahday koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo markii dambena uu ku soo biiray sida la sheegay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jaamac. wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in mas'uuliyiintan ay isku raaceen in xaalad degdeg ah lagu soo rogo magaalada Muqdisho xilli ammaanka uu faraha ka sii baxayo. sidoo kale wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay isla qaateen go'aan ah in xaaladda degdega ah loo adeegsado ciidamo aad u fara badan oo ka amar qaadanaya wasiirka amniga iyo waliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. iyadoo aynu egnahay in ciidanka intiisa badan iyo saraakiishooda ay ka amar qaataan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, haddana waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yare iyo waliba Cabdilaahi Maxamed Nuur, taasoo salka ku hayso arrimo siyaasadeed. dhowaan shir jiraayad uu qabtay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yare waxa uu sheegay in inta siyaasadda ay meel kaga dhacaysa ama doorashada lasoo gabagabeynayo uu markaas yahay wasiirka amniga ee gobolka Banaadir isagoo ismagacaabay, isla markaana waxa uu sheegay inuusan ka amar qaadan doonin wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdilaahi Maxamed Nuur. arrintaas ayaa tuhun weyn dhalisay iyadoo markaasina amniga uu faraha ka baxay isku haleyn dartiisa. ra'iisul wasaaraha iyo waliba Cabdilaahi Maxamed Nuur waxay isku raaceen in awood la adeegsado, isla markaana haddii ay isku dayaan maamulka gobolka Banaadir in ay siyaasadeeyaan amniga ee markaasi ciidan u adeegsadaan markaasi
ciidan kale loo adeegsado si meeshaasi ugu dhaca dagaal xoogan oo saameyn ku yeesha shacabka gobolka Banaadir. qaraxyo waaweyn iyo dilal qorsheysan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gaar ahaan ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. lama oga xaaladda halka ay ku dambeyn doonto iyo weliba sida markaasi laga yeelayo go-aanka xaaladda degdega loogu soo rogaya magaalada Muqdisho. dhinaca kalena faahfaahin kala duwan ayaa kasoo baxaya laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo geysay khasaare kala duwan sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal qof soo xirtay jaakadaha qaraxyada ayaa gabaldhici isku miidaamiyay maqaayad ku taala afaafka hore ee xerada tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee General Dhiga Badan ex xera Nacnac. inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi sidoo kale ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dadkaas ayaa la sheegay inay isugu jiraan askar iyo shacab halkaasi ku sugnaa. afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa qoraal uu ka soo saaray qaraxaasi waxa uu ku yiri abbaara 5:18 daqiiqo qof naftii haliga ayaa isku soo qarxiyay maqaayad u dhow xerada General Dhiga Badan ex Nacnac. khasaaraha ayaa noqday 14 qof oo dhaawac ah iyadoo ay dhaawacyad u geeriyoodeen 4 qof. shakhsiga naftiisa haligana ayaa toos u beegsaday maqaayadda ay ku sugnaayeen dad ka mid ah bulshada deegaankaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi. warbaahinta taageerta kooxda ayaa werisay in Al-Shabaab ay sheegteen in qaraxaasi lagu dilay 20 askari oo ka tirsan ilaalada dugsiga tababarada ciidanka Soomaaliya ee Turkisom. maqaayadda uu markaasi qaraxaasi ka dhacay oo ku tala kasoo horjeedka warshadii hore Nacnac haatan xero tababar oo ciidanka xoogga uu leeyahay ayaa dhacda dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir 15 Juun 2021 iyo sidan oo kale qarax ismiidaamin uu kaga dhacay. dhinaca kalena qarax gaari lagu dhajiyay ayaa mar kale xalay ka dhacay isla degmada Wadajir gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaan Xaaji Kaabow. gaarigaas qaraxa lagu dhajiyay waxaa lahaa shirkad lagu magacaabo Caadil mana jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay marka laga reebo burbur xoog leh oo soo gaaray gaariga. sidaasi waxaa warbaahinta u xaqiijiyay afhayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan. dhinaca kalena dowladda Turkiga ayaa waxay markaasi shaacisay arrin aan la ogeyn oo ku saabsan ciidanka Soomaaliya. wasaaradda arrimaha difaaca Turkiga ayaa markii ugu horeysay shaacisay arrin aan horey wax badan looga ogeyn oo ku saabsan kaalinta dowladda Qatar ay ku leedahay arrimaha tababarka ciidamada Soomaaliya. bogga weerarka ee wasaaradda ayaa la soo dhigay sawiro iyo qoraallo muujinaya saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalka Qatar oo tababar u fidinaya 350 ciidamada commandoska Soomaaliya oo lagu xeeleelinayo xero weyn oo ku taala dalka Turkiga. sawirada ayaa lagu dul qoray jumladan oo luqadda Turkiga aan ka soo turjunay xarunta tababarka dhanka la dagaalanka argagixisada ee Carbiska Sparta. isbuucii saddexaad ee tababarka loo sameeyay 350 askari oo Soomaaliya oo tababarka jooga. waxaa qayb ka ah tababarka ciidan xubno ka tirsan ciidanka militariga ee wadanka Qatar. tababarkan saraakiisha Qatar ayaa ku saabsan arrimaha argagixisada la xiriirta wuxuuna ka dhacay xero ku taala magaalada Sparta ee dalka Turkiga. sidoo kale tababarka ciidamada Soomaaliya ayaa aad looga yaqiinay inay fududiso dowladda Turkiga balse kaalinta Qatar ee ciidamada waxay ahayd mid aan horey looga warqabin. kaliya waxay dowladda Qatar ku koobneyd arrimaha kale ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda la xiriirta. Turkiga iyo Qatar ayaa waxaa ka dhaxeeya iskaashi military iyadoo dowlad kasta ay saldhig ciidan ku leedahay dal kale si isweedaarsi ah. inkastoo la sheegay in saldhigga Turkiga uu ku leeyahay Qatar uu weyn yahay. Turkiga waxa uu saldhigga ugu weyn ee tababarka ciidamada ku leeyahay magaalada Muqdisho kaas oo lagu magacaabo Turkisom. hase yeeshee ciidamo gaar ah ayaa intooda badan lagu tababaraa gudaha Turkiga. lama oga in saraakiisha Qatar ay tababarka iyo tala bixinta ciidankaba ka fuliyeen gudaha Soomaaliya xilli kooxaha mucaaradka ee Soomaaliya ay aad uga faragodayaan dowladda Qatar kuna eedeeyeen inay garab siiso dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hundulus Askar ayaa bishii November ee magaalada Ankara kula kulmay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya General Odowa. markii ugu dambeysay oo arrin ku saabsan ciidamada oo xiriir la leh Qatar ay soo shaabaxdo waxay ahayd sanado ka hor
markii dowladda Soomaaliya ay fududeysay dhalinyaro Soomaaliya in askar ahaan loogu qaado Qatar si ay uga qayb galaan ilaalinta koobka adduunka oo qabsoomay ama ka qabsoomaya dalka Qatar 2022 bisha Janaayo ee sanadka 2019 ay dowladda Qatar gaadiidka gaashaaman ugu deeqday ciidamada Soomaaliya sida ay markaas xilligaasi faafisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ma jira xog shacabsan ama meel furan oo laga tixraaci karo howlaha tababarka qalabaynta iyo caawinta Turkiga ee ciidamada Soomaaliya marka laga reebo war-saxaafadeedada iyo mararka kooban ee warbaahinta loogu yeeray ciidamo soo qalinjibiye oo Muqdisho lagu soo dhaweynayo iyo kuwa dhoofaya mucaaradka Soomaaliya iyo waalidiinta u badan ay ka maqan yihiin oo dhowr jeer warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidan markii horeba loo qaaday Qatar loo qaaday markii dambe la geeyay dalka Eritrea si loogu soo tababaro. Guud ahaan daawadayaal warkeed kala socoteen channelka waa naga inta.